بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود هذا عيارتي عاوة من صومالي عمان حقار كده يدونا ضدك جارسية أصحابته هلا جارسيو سود هذا Soomaaliya caawa ciyaar fiican ay soo bandhigtay guul ee u qalantay waxaa moodaa in garsooraan xogaar uu naga hiishay macalinkan xogaar shaxda markii hore ku soo galay wax ka qaldanaayeen sida lambarkii sayga 24 markii dambe uu ku soo bedelay wixii dhacay inta aragnay wax ka sheegayna soo dhawaada marka asxaabta gaarsiiye Soomaaliya sidii laga filayay isoo ciyaartay waa ka fikir dheeri waxay noqdeen xul ajiib ah oo laabta noo qaboojiyay kubad fiican ay ciyaareen ciyaar qurux badan ay soo bandhigeen wax adan maleysa kirnay soo bandhigeen marka ciyaarta guul darro way laakiin man Soomaaliya caawa ciyaartay wallahi guul ay u qalantay si u ciyaareen sida laga filayay shaqo isku ma lahayn ciman waba bacsanay waa ka awood badneen waliba ciyaarta kubadda cagta qofkii yaqaano waa 45 daqiiqo ciyaarta markasta waa gelin dambo annaga gelinka dambo goolna waa la imaanay kubad qurux badan la imaanay kubad heesha la imaanay wax kasta ku sameeyay laakiin goola dal rabin 24 kubad fiican oo shootaaka banaankeeda ka toogtay sidoo kale lambar 9ka kubad fiican oo goolaha ayaa ku helay inkastoo lugtu ka gaabatay sidoo kale ciyaartooyda 11 watay laacib fiican oo ahaa labada garabna kala labada gelno ciyaarta sidoo kale sataa wuu fiicnaa inkastoo kubadda gadaal soo celinayay sidoo kale waxa aad kubadda u ciyaaray kabtanka xulka qaranka oo xifrad iyo aqoon iyo isku darsada ilbaxnimo cajiib u ahaa caawo sidoo ciyaaray deganaantiisa Soomaaliya qaladaad badan ma gelin gool hayaha ahaa man of the match ana xaqiiqa kubad qurux badan kalsooni caalami ah xitaa goolayaasha adduunka koobka adduunka ciyaaraya kalsoonidaas ma qabaan in kubadda shootaa dhexdeeda weeraryahanka xulka ka soo horjeeday kooxda ka soo horjeeday kubadda taad lugta saarto ku marsheeso ee adan baasto way fiicneed si fiican u ciyaaray waxa moodaa in kubadda xitaa dajinaya kaambid hore ciyaarta konton daqiiqo maraysa waxa moodaa marka kubadda goosh asiga xigta ee u baxdo inuu intuu soo carro kubadda boobsiinay natiijo ka maqneed dhiirnaan dolaayo rigoor laga dhigo muu ekeen mid gool lagu gaado muu ekeen goolka hore wuxuu ahaa kuma ka seenin gool hayaa soo tufay kii labaad wuxuu ahaa kuma ka seen gool hayaha ciyaarta 50-50 asi iyo weeraryahankaba kubadda u dhaxeysay inkastoo garsooraha xogaar ahayd inuu ciyaarta far fiiriyo soo arko farwell ahayd qofka arkay ciyaarta markay bilaabanaysa daqiiqada ugu horeysa aan la tusiyay farta inuu fiiriyo ahayd laakiin saastay tahay sida aniga aan ka filayay si u ciyaareen iyo sida ka fileen dhamaanteen wallahi waa ka fikir dheeri waxa intaas ka sii daranbo oo aqliga galeeninbo kubad heesashada banooniga Barcelona iyo Man City ma meeshka dheelayaan aan waa yaabay ciyaartooyda intee laga keenay Soomaali banooni waxa lagu yaqaan bug ah oo kubadda maanta oo dhan difaac ku jirayaan waxa yaab leed ciyaarta 90 daqiiqo dhamaatay 45 daqiiqo ugu dambeysay eeda bisa Soomaali bisa kubadda maamulinaysa jaanisada ugu badan ee abuurtay ciyaarta qayb dambe sababtoo ah ciyaarta qaybta hore hal fursad oo targeeda sameysay laakiin qaybtii dambe kubadda aqliga galeenina sameysay waliba 3 on target oo nadiif ah sameysay midna gool ku dhashay markii si fiican u ciyaartay intaas waxa ka sii daran macalinka xulka qaranka oo aan siiyay qabiir caalami ah sababtoo ah wuxuu fahmay meel kasta oo xulka qaladaad ugu jiray lambar say wuu daalay saxeed in la bedelo inuu dubaha ku soo kabo yarka dubaha watay way fiicneed inkastoo yarka dubaha ka ciyaaraya foorka watay xogaar nin daalan oo ka markii dambana 2 mar 3 mar laga soo galay hadna saastay taacibtiisa waxa asturaya feefka ninka feefka ka ciyaaraya iyo waliba tareega oo daafacyada dhaxa ahaayeen si caadi ah u ciyaareen ayagana yarka tareega ka ciyaaraya isagana oo kay ahaa isku xirkooda waa fiicnaa dhiirnaani lahaayeen qaladaad badan ma gelin
jaalooyinka xitaa garsooraha ku buubsiinayay waxayd inuu digniin siiyo ciyaartooyda Soomaaliya 3 iyo 4 jaalo siiye mid digniin la siiyo kuma jiro ku buubsiinayay laakiin ilbaxnima ka qaadnay ciyaartooyda caalamiga oo heerkaas maraayo oo inaa keeno oo halkaas gaarno wax fiican inoo tahay marka horna waa naga cabsanayo ciyaartay bilaaban dadka luqadda carabiga wax ku qoro iyo kuwa yaqaano oo website-yada iyo TV-yada daawado mudday soo bandhigayeen Shalmaan Daraade Cumaan wixii dhahan Soomaalida la ciyaarayna iyo Soomaalida oo ciyaaraha oo xulka ciyaari jiray shaqo isku malahan way soo baxday kubad fiican ciyaareen waxaa natiijada iyo nasiib darrada iyo wixii dhacay oo dhan ka fiican oo ka qiimo badan wuxuu sameeyay gool hayaha si fiican u ciyaaray kubad fiican oo soo bandhigay waliba kalsooni laba gool ugu leeyahay intuu kubadda qabsado soo abuuro isaga banaanka u soo baxay kubadda soo raadsaday daafacyada caawiye kubadda xitaa 50-50 markay tahay si weeriyaan ku dhaxaysa awood u leh inuu shabaq uusan ku jirin kubadda waa wali tagi jiray goolayaasheen 6-7 naga dhali jiray taariikh xumaan ugu dhici jirtay marka ugu fiicanna 3 iyo eber forfeit ciyaar ah ina ciyaarin oo kale aan wal soo badi jiray hadda wuxuu ciyaar si aqli galeenin wallahi aad u dhiirigeliyay ilbaxnimo oo anugu soo kordhay tahay hadda qof kasta Soomaali ah oo caaw ciyaarta daawanayay markii Soomaali guuldareedu arko wax weyn lama aan sababta wuxuu dareemay in kubadda ay tahay cadi madow laakiin banoon la ciyaaro waxa kubadda loo ciyaarna ma aan gool dhaliyo gool adduunyada waa laga tagay gool waa la isku daldalaa qiimo ma lahan gool waxa ka qiimo badan kubadda in position-kaaga ilaashatid inaad ciyaarta ilaashatid in ciyaartooyda kalsooni ku ciyaaraan inay muujiyaan inay xul ciyaarayaan walaahi aniga kabtanka la barsideedka watay waxa aaminsanahay in uu yahay kii ugu fiicnaa oo anaga calaamadda noo xirto xulka qaranka calaamadiis xiran lahaa golaaya Mustafa sidoo kale marka way dhacday ciyaarta hadda waa naga la badiyay laakiin niyadda qofka bilaadanka niyadda ka dhintaa kubadda cagta niyadda laga daawadaa laga ciyaaraa ciyaartooydeena markay soo galayeen kalsooni qabeen tababarkooda xalay iyo habeen rooti shalay iyo dadka daawanay walaahi ma maleysan karin waxa laga filaayay iyo wixii soo bandhigeen way isla haadeen marka aaday farxad noogu tahay weyn dhiirigeliyeen intii oo Soomaali jecelna guuleystaa leeyahay waxaa dareemaa in Soomaalinimada qof kasto anaga naga mid ku weyn tahay ani walaahi mudooyinkan kubadda cagta ma jeclayna ka laakiin mar qaar isma celin kartid waa qasab wixii dhacay inaad ka hadashid Soomaali dad ku dhaay waa laga badiyay sax waa laga badiyay laakiin kubadda yaa kubad ciyaaray kubadda heshiya sameeyay war shabaqa ma gaari jirin Soomaali gool ma dhali jirin inta kulana ugu dambeeyay Soomaali ciyaarta 6 ama 5 kulan ugu dambeeyay gool aan ka ma soo baxaan way dhaliyaan shabaqa gaara xilli hor gool ma dhali jirin Soomaali goosha waa naga hormari jiray waa nagu wadi jiray kaambiyo 5-6 la geey jiray 2 eber oo waliba rigoora ah kan kala goolaaya iskaga dhacday oo goolaaya markay soo tufay kadib ciyaaryahan ku taabtay xitaa faarin la fiiriyay ee naftirkeeda waxay aad in ciyaartaas garsooraha naftigiisa oo ildo faarin oo fiiriyay sababta ciyaaryahanka waxa la dhigi karaa inuu ku jiray maxaa la dhahaa offset sababta hal ciyaaryahan iyo isagii ahaayeen in loo fiiriyay kuma soo celin xitaa waxyaabo kale waxa kamid ah xitaa wariyaha oo cari wax ku tawinaya qofka ciyaarta fiirsanayay uu dhahay waxeedo dhahay in garsooraha hubiyo dhahay garsoorayaasha naftirkooda faarta fadhiyo inay garsooraha soo wargeliyaan dhahaan ciyaarta goolka dib ha loo eego ma dhicin Soomaali guuli goonima urjeena waa guuleysanay aniga qaasatan caawa farxad zaa'ida dareema wallahi daawashada qofna ilama daawanin waa diiday qof inay la daawato marka farxad gooni ee dhammaantiin Soomaaliya ana walaato kulamada soo socdana saan ka darnaa rajeenaynaa sababtoo ah waa barana sida goolka loo dhaliyo sida kubadda loo ciyaaro ciyaartooyda Soomaali waa la handadi jiray ciyaarta dhexdeeda waa la handadi jiray waa awood physical loo sheegin jiray ciyaartooyda garoonka ugu jiray ciyaartooyda diyaarsan ayaan inkastoo badankood aysan wadanka ka ciyaaran haddana adduunka oo dhan ba xulalka oo adduunka ugu weyn Brazil Argentina kuma dheelaan kuwa oo ciyaar xaafadeedka oo horyaaladooda ka dheela lama dheelsiiyo Belgium ka fiiri Faransiiska fiiri dhamaantood banaanka laga keenay ciyaartooydooda Portugal fiiri 23 ciyaar 25 ciyaar xulka loo soo xulay banaanka laga keenay horyaalada caalamka sharafta taabo in Soomaaliya
ciyaartooy heer caalamiya oo seer ee Serie B iyo Serie C ka dheelaan in Soomaaliya intee keensato laga maarmo ciyaartooyda xamar joogo oo ku foos wareeray oo tobanka kooxood horyaalka ciyaaraan liita ciyaaro sababtoo ah Soomaaliya way ka weynaatay waqtigaas adduunka xil waxaan soo martay Uganda iyo Burundi ee toddoba lagu qabanayeen maanta waxaa mareynaa in gool naga dhali waayo in Jaanis nagula heli waayo in annaga aan noqono kooxda ugu fiican oo marka ciyaarta xitaa annaga naga badi man of the match goolaayana qaadanaya qof kale kama lahayn sababtoo ah Imaan Banooni ciyaaro hadda Banooni fiican soo bandhig ma jirbo inkastoo nin sataa oo fiican u ciyaaraya oo aan la xaqiiri karin oo Jaanis sameeyay haddana sataa xaguu ku bad geena goolaayo waxa ku jiro libaaxay ana wala caaw waxaas taa goolaayo maxaa manuel noy malakina asla bravo maxaa Buffon Edersonka Man City oto kan Banooniga استيجن عملوا ليلة بنونو باساي دع دركة كدو عمل كبد كرو قدفاي مركا سفي عني وعيارين واديلني وقوليسن قول يتنو حاو قالي سبو قول وحاق قالي سبو كبتيس شده ورجال سيو بقوليها مان سيتي جامبيون كقاديسو او هريالك كال افراد توغيسو او سوتو بيسي ايشك كوحد استوفيلا كلك قد بيصوت تابان سيتا درنا هوريالك laga qaaday iyadoo Man City champion ka dhabo afar gool miya laga soo dhaliyay marka guush iyo guul darada waxa ka qaalisan bad kubad heeshada in kubad la ciyaaro kubad waa ciyaarnay kubad fiican ciyaarnay heer sara gaarnay waxa dareema Soomaaliya in 2 sano amba 3 sano kadib koob Afrika soo qaadno koobka Carabta soo qaadno u gudubno ishak koobka adduunka Israa'iilkiisa hadda maalin kasta ku harnaa Israa'iilka iska daayay xitaa kulamada oo bugbaxa ah oo Israa'iil ka hore ina guruubada inta ka soo baxano sida Nigeria u dheelaan oo aad tagno hadda qadar lagu qabanaa sanadkan oo kale dirskeena waa qadar Soomaali badan ku nool ina tagna eed waxa tag weyn waxay nalama soo diyaar waqtina lama gelin hadda marka waqtiyana la geliyay Jaanis heesana waa gars macalinka xulka qaranka midkii laga bedelay oo Cameroon u dhashay muu qalmin bay xulka loo dhiibo macalinka loo dhiibay qabiir oo ciyaarto walaa bedeladu sameeyay أنا وحاسد maxaa adin niidaada ma ku jira isdhaa bedel ciyaaryaanka isdhaad moo bedelooya positionka booska looga baahan yahay wuu dareemay wuu akhriyay nin degan oo ahaa ciyaartooyda kama waalinaynin wuxuu dareemayay in oo mas'uuliyad saaran tahay teeda kale markii koox la ciyaarayo markii xul loo ciyaarayo shuqul biskuma lahan ciyaartooyda Soomaaliya hadda kabtanko kale 90 daqiiqo wuxuu u ciyaarayaa sida in ciyaarta hadda bilaabato kale awood badan oo galiyay marka Soomaaliya guuleysto idinku waa mahadsantiin asxaabta daawatay kuwa share gareeyay kuwa commentiga soo dhiibtay aad u mahad celinaa insha Allah Soomaaliya guula urjeenayna waa guuleysanayna fursadaha iyo waqtiga naciila ee burburka maahane Soomaaliya wiligeed waxa la jiray Soomaaliya iyo Brazil wixii adduunka laba xulo banooni ka sameeyay Soomaaliya Brazil ka jiro hada u fiirsato taas waa ciyaartooydeena soo ciyaarayaan Brazil oo maraysa Brazil ciyaaraan 11 kubad markuu qaato wala waxa isdhaa miismi ama samehraas waa Maxamed Saalax baro markuu saas u lexsado sita waxa isdhaa si ark ma xaq soo galo misaazada kubad watay Neymar si ciyaaraan Malaysia kartid Imani marka si fiican oo ciyaarnay qadka dhexe wuxuu soo xasuusiyay ciyaartooy badan oo kubadda qadka dhexe ka ciyaar jiray sida Frank Lampard iyo Sheikh Stephen Gerrard iyo Paul Scholes iyo iska daa inyasta amal banooni uu ku xisaabtamay uu ogaa kubadda meesha la dhigay qadka saaygeena shaafi soo xasuusiyay marka waa ciyaarnay si fiican oo ciyaarnay natiijo fiican oo qalanay xitaa ninka noobaan oo ciyaaray 16 wato la bedelay xogaar inuu caajisnaa mooda ninka dhalinyarada la keen naftirkiisa xogaar waa nin jabiro ah laakiin saastay tahay wuu cadaadiyay ciyaarta qaybta ugu dambeysay waliba 3 daqiiqo lagu daray cabsi badan oo galiyay wayna cabsadeen marka ما عليش وين عضاء قول درو وواحد لوجا جرونك إن لبضك وحصاب بدي اسمه معقول ما أبو waxa oo laba bir loo siro oo hal banoon loo keenay waxay tahay in la kala badiyo marka waa kala badinay waa dhacday waa dheelnay adduunka oo dhan maanta caaw iska daay ilaa 10 sano soo socod uma wanaga sheegay doona habeenkaas ula ciyaarna caaw ah marka anagana farxadeena oo tahay guul amaadsantiin aad amaadsantiin leefka halkaas ku soo gabagabeena Soomaaliya guuleysato xulkeen ha guuleysto kooxaheena horaha u maraano horyaalka Soomaaliya oo xaafadaha wardhigle iyo laga ciyaaro i karaan ha lagu soo daro
ilaa laga soo bilaabo min zaylac ilaa raas jumba hala geeyo oo soomaaliya waqooyi oo koonfur ha dhiilaan puntland ha laga keeno jubbaland ha laga keeno koonfur galbeed hirshabelle ha laga keeno galmudug ha laga keeno marka hala siyaadiyo waxaa aaminsana wallaahi miisyaal badan inay soomaali qabto iyo ronaaldo badan ha laga soo bixiyo xaafadaha ha laga soo bixiyo tuulooyinkay ku ciyaaraan ha laga soo bixiyo gobollada ka ciyaaraan hala keeno waa aragteen sanadka sanada waxaa la ciyaaraa maxaa la dhahaa maamul goboleedyada koobkooda halka maray ciyaarna wacdaraha dhigna maleysan kartid iyo xamaasadda naga muuqato marka soomaaliya hala hormariyo xiriirka naftirkiisa indhaha u kala furmaan aniga waxaa xasuustaa hadda soomaali intaa kasoo tegin soomaali hadda wiig iyo barak soo maqana malayna waxaa tegay istaadi muqdisho waa la dhisay laakiin awe yaa dheelaya toban kooxada horyaalka dheelaan oo 5 ama 6 ka mid ah ay wardhigli ka dhisan yihiin marka wardhigli ma loo dhisay garoonka ma loo dhisin qoob doraal dhisay jaamacadaha la dhisay waxaas hal ciyaarto dheesha hal keeno 2010 ciyaaryahanka horyaalka ciyaara ilaa hadda ciyaar hor muu socdaan kooxaha naftirkooda hor muu socdaan dhaqaale lama geliyo ganacsatada naftirkooda dhaqaalaha geliyaan dowladda iyo dadka xamar deganna iyo dadka Soomaali deganna war kubadda waqti iyo waxay u baahan yihiin juhdi geliya oo hal hormariyo waa mahadsantiin Soomaaliya guuleysto waa idinku dheeriya aad mahadsantiin